soo dhawaada saaxiibayaal meel walbo maqalkaygu idinka soo gaarayo waa mar kale iyo barnaamijkeenii codka Oblos Inbaayo Soomaali alaaba podcastigan waxaan kaga hadalnaa arrimaha ganacsiga khaasatan online-ka iyo faa'iidadiisa waa qaybtii 6aad ee season 2 waxaad ka daawan kartaan wareysigan iyo wareysiyadii hore kanaalka Maari Xuseen sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan adeega podcastiga waxaa ila joogta caawa Raxme Maxamed oo ka mid ah teamka Oblos Global sharaf weyn ayay noo tahay inay waqtigeeda qaaliga ayna siiso sidoo kale inay nooga faa'iideyso guulaha taariikhiga ay ka sameysay online-ka waliba muddo yar kooban ugu horeyn soo dhawaala sharaxba wadaba walaaqay waana ku baasan tahay waqtiga qaaliga ay siisay iyo sharafay ii tahay inaan kasoo mid noqdo asxaabta wareysi ka qaadanaysa adiga iyo asxaabtaadana waa in salaam gaar ah waad mahadsan tahay mar labaad Raxma waa tuma Raxma maadaama aan ku garanayo aniga iyo teamkuba si fiican ku garanayno dadka u sharax waa tuma Raxma Raxmo waa gabar Soomaaliyeed oo wadanka Canada ku nool oo gaar ahaan magaalada Ottawa waxay imaaday 2006 ay imaaday 2006 alxamdulillah markaa imaaday iskuulka inta ugu baxay college inta ugu baxay waxa bartay wax la yiraahdo nursing ama kalkaaliso alxamdulillah hadda taas ku shaqeeyaa dan anoo kalkaaliso doqoshik meelaha oo isbitaalada kama shaqeeyaa kabesh doqoshik loo haay ka shaqeeyaan alxamdulillah dan anigoo kalkaalisi ah ayaa waxa ku soo biiray Oblos Global maadaama podcastigan ama wareysigan uu yahay dadka inaan uga faa'iideyno faa'iidada weyn ee ku jirta online-ka waayo ganacsiyadeenii hore ayay dadku inta badan aaminsan yihiin ganacsigan online-ka ah wuxuu koobsaday waxyaabo aad u tiro badan qofka doonaya inuu wax ka ogaado online-ka sidoo kalena uu ka faa'iideysto maxaad u sheegi lahayd Raxma waxaan sheegi lahaa online business horta aniga online business waa mid Oblos Global waxa waa kamaniga ugu horeeyay aan soo galo maasha Allah soo kamaniyaal badan oo ka duwan yahay waa kamani maasha Allah dhihi karo waxyaalo badan oo kamaniyaasha kale ugu duwan sida kamaniyaasha kale ma gadaan alaab ay soo saareen isma gadaan anaga alaabta gadno waa alaab aan maxay onak soo saarnay kamaniyaasha kale fashion ma gadaan anaga fashion aan gadnaa iyo alaabo oo productiga oo caafimaadka qaabilsan qaybta personal care kala dhaho oo waxyaalaha lagu cadeysto daawada adiga maasha Allah fara badan ahayna oo kamaniyaasha kale oo naga saareyso plus kamanigeena maasha Allah waa 18 sano jira waa kamani oo solid dhaho ama kamani adag oo meel u soconin oo hor u soo socdo hor u sii socdo waxyaalo fara badan maasha Allah ee ugu dawaya kamaniyaasha kale oo marka kamanigeena maasha Allah Oblos Global anaga soo mid noqotan aad ka gaari kartid waxyaalo la yiraahdo caafimaadka kor u soo kobcinayso oo optimal health wax la dhaho oo caafimaadka kor geenayo aad ka helaysid productyaasheena iyo wax la yiraahdo financial freedom aad ka helaysid oo lacagtaada iyo nolol maalmeed wanaagsan maasha Allah aad ka sameyn kartid haddii ahaan inaad ku noqdo maxay ahayd shaqadaada dhan full time jobkaada inuu ku noqdo oo shaqada ka shaqeysa kaliya inuu ku noqdo ama si anoo kaleeto anoo shaqo ka shaqeeyo shaqo kaleeto supplemental income wax la dhaho oo shaqadaada ku kordhinayo lacag dheeraad ku soo meel ka soo galaysa ku noqon karo maasha Allah online-ku waa meel dadku ay u baahan yihiin runtiina ay u baahan tahay inay wax badan wax ka ogaadaan goormaad ku soo biirtay company Oblos Global maadaama uu yahay company aad u ballaaran insha Allah rajaynayna sharaxaad kooban naga siiso maasha Allah company Oblos Global waxa ku soo biiray 2019 September ku soo biiray maasha Allah markaas oo markuu cruise-ka waa company u aaday oo ka soo noqonay ahayd markaas oo ku soo biiray maasha Allah markaa ku soo biirana anigoo experience waxba lahayn ebidka MLM ka shaqeynay ebidka shaqo kale online ah qabanin aan ku soo biirso haddaad leedahay online ma aqaano ama wax kama qaban karo haddaad leedahay inaad maasha Allah success ka gaari kartid ogaad soo 2019 ku soo biiray maadaama company-gaas uu yahay company aad u ballaaran runtiina 200 oo wadan gaaraya ma noo sheegi kartaa ama dadka ma u sheegi kartaa sharaxaad ku saabsan company-ga Oblos Global si ay wax badan wax uga ogaadaan maasha Allah company 222 ku saabsan yahay oo gaara alaabtiisa waa international company oo meel kasto oo maxay ahayd oo posto tagto ama alaab loo ship gareyn karo ama alaab loo diri karo u dirno hadda Soomaaliya alaabteen gaarna macal gobolyada kamid ay gaartay America dhan way gaartay Europe dhan way gaartay Africa way gaartay meel kasto qof kasta internet qabo inuu ka ganacsan karo opportunity-gaaneed ama company-ga Oblos Global inuu ka ganacsan karo
u sheegi lahay asagoo gurigiisa jooga asagoo caruurtiisa ku dhex jirta ama asagoo shaqadiisa kala aadayo ama isagoo retire gurigiisa iska joogto maasha allah oo maxay ahayd oo waqtigiisa cibaadaysan at the same time uu ka shaqaysan karo qof kasta yar iyo weyn da' ma lahan kambaniga dad ka shaqaysan karo asagaas adiga aad rabti inaad waa fursad weyn oo qof walba caawinaysa online-ku sida raxma idiin sheegtay raxma sideebay kugu suurta gashay adigoo caafimaad ay tahay khibradaadu inaad ganacsi online aad samayso horta obvious goob markaa soo galay isma lahayn dhaqaala ka samaynaysaa ama ka shaqaysanaysaa isma lahayn dadka waxaa aasamada haysa soo markii aasma qabtidna waxaa u baahan tahay jirkaada wax difaaca jirkaada kor usoo qaado difaaca jirkaada hooseeyana waxyaalo badan uma adkeysi karta hargabyaha hadduu ku qabto xataa aasmada kuma kicina soo goojadeen dabiiciga fountain of life waxay supplementiga soo jiidatay inaan kambanigaas soo galo soo fountain of life waa maxay ahayd waa goojo dabiici oo anti-inflammatory inflammationka dhan jirkaada ka bixinaysa haddii ahaan lahayd inflammationka asmada la socdo oo sababaha kaa galayaan soo markaa goojahaas qaatay iga caawisay kenya noo joogo qaadashadeeda ifraaxa maasha allah ablankeyga ah walaasheena ifraax sayd xasan markaas iidaa marka ka ark facebook iyadoo fountain of life xayeysiinaysa soo markaas waxaa dhahay ifraaxi baxashaan rabaa inaan ka helo tiimka kenya jooga igu xirtay markaas kenya briceka ii sheeg markaas kama kortamin oo horaa ka gatay fountain of life qiimaheeda dan markaa isoo noqda kanada kusoo noqda waxaa dhahay koojada waxaa rabaa inaa sii isticmaalee waa iska taqaana soomaali qiimo mayga ridi karta camal sheekaas u keenay dan waxay dhaha maasha allah haddaa rabti inaa qiimo dhimis rabtid waxaa ganacsigeeda kasoo mid noqota discountiga adiga kugu fadhiso adiga shaqsi ahaantaada ku gadan kartaa isticmaali kartaa alaabtana ummad kale uga sii faa'iideyn kartaa sidaas sameeyey emailkay ku furtay lifestyle advisorka productiga discount ka helay isticmaalay ummad badan u faa'iideeyey waxaan meeshaas ka bilaabay inaa duco iyo dhaqaalaba meeshaas ka sameeyo oo ummadda markay wax u baahan yihiin aasiisay maandhi khayr allah ku siiya lagu leeyahay semta meeshaas dhaqaalo waa ka samaynaysa so maadaama company meel igu cusub online business igu cusub aa soo galay waxaa u baahan tahay inaad baratid u shaqeeyo wuxuu yahay si loo kala shaqaysa inaad baratid so markii aad bartay emailka u shaqeeyo productiga waxay tahay industrigeena MLM waxay tahay markaas bartay alxamdulilah 3 bilood gudaheeda waxaa ku arkay inaan comfortable ku ahay ama ku bartay productiga iyo business u shaqeeyay alxamdulilah xasana gudihiisa tiimka ii kobcay oo hadeertaan 23 wadan joogaan 400 oo tiim ah 400 oo maxay partner ah business partner ah dan alxamdulilah sanadka ugu horey waxaa bilaawday inuu ilaahay ii suurtageliyey waa inaan markaa la imaatay dadaalkii iyo shaqadii la imaatay ilaahayna uu kuu qoro inaad dhaqaale ka samaysid way ku suurtagalaysaa soo marka insha allah sanadka ugu horey ilaah wuxuu ii qoray inaad dhaqaale ka sameeyo companiga Obelus Global oo lacagta ugu horeysa ii soo dhacday $100 ugu horeeyay dan alxamdulilah commissionka sidaas ugu bilaawday commissionkaaseeto aan ka sameeyey Obelus Global waxay iga caawiyey inaan maxay ahayd gaarigayga hadda aan quuto oo shaqada ku aado down payment wax la dhaho ama lacagta ugu horeysa gaariga laga shubaayo inuu iga shubo commissionkaaseeto dhaqaalaha ka sameeyey alxamdulilah wax kaloo iga caawiyey commissionkaaseeto inaan maxay ahayd apartmentigayga hadda ku noolahay inaa furniture ka sameyso oo sharxado bisha warasi bisha ugu dambeysa lacagteeda ku shubo automatically wax kaloo iga caawiyey allah u naxariistay hooyadii markay ay xanuunsaneed oo medical expenseskeeda ee Nairobi markay joogtay qaar ka baxsho oo maxay ahayd maadaama Nairobi waa taqaanaaye expense marka caafimaad yar hadda u tagtay $100 check-up yar hadda u tagtay $100 waxaas keenay marka soo markay xanuunsaneed isbitaal ku jirtay medical expenseskeeda inaan wax ka fargareeyo ay ii suurtagelisay iyo markaa maqnaay iyada la joogana expenseskeeda oo guriga ijaarka gaariga rentalka student loankayga iska baxsho waxaas dhanna commissionka inaga caawiyo marka alxamdulilah Obelus Global waxaa dhihi karaa waa company kaliya ii suurtageliyey inaa caafimaadna ka helo at the same time-na dhaqaale ka sameeyo maasha allah waxaan runtii halka ka dareemayaa in Obelus Global caafimaadkii dhaqaalihii isqurxintii iyo daryeelkiiba uu kaabay qof walba wuxuu u baahnaa dhaqaale intee ayaa laga sameyn karaa maadaama uu qof walba doonayo inuu company noocan oo kale uu dhaqaale ka sameeyo company Obelus Global dhaqaale intee ayaa laga sameyn karaa dhaqaalaha inta waxay ku xiran tahay adiga dadaalkaada iyo
isa u shaqaysay iyo darajadaad tahay soo wuxuu oblis golob wuxuu ku suurtagelinayaa markaa dadaalkii iyo shaqadii la imaatay iyo darajada ugu sareyso dhaqaala ugu sareysa aa ka samayn karta waxaa waaye wiigii inaad ka samaysid 60,000 wiigii waaya iyo ama sanadkii inaad ka samaysid 3 milyan iyo wax la jirto oo Canadian ah ama 60,000 oo Canadian ah wiigii inaad ka samaysid soo markaa had saa usoo gashid isla markii dhaqaalo ka samayn karta hadaa la imaatid dadaalka iyo shaqada la gaara mahayna waa soo gali lacag ku shuban waa iska seexan lacagta iyadaas dhalaysa maahan Oblis Global Company-gan waa company maasha Allah alaabtiisa tayo leedahay compensation plankiisana maasha Allah oo caadi ahayn oo midka ugu sareeya uu yahay laakiin adiga markaa soo gashay ummadda la sheer gareeyaa lagu dhahay alaabta marka faa'iidada ka aragtay la wadaag iyo ganacsiga opportunity-gu leeyahay dadka iyaga markaaseeto oon soo raacayaane so marka limit ma lahan waa in unlimited waa dhihi karaa maasha marka limit ma lahan waa in unlimited waa dhihi karaa waa dadaalkaaga yuu ku ciilin baan u gartay yes waxa qabada ma ka hor yimaadeen markii ay hawshu bilo ku ahayd Raxma yes caqabad la'aan meel jirta ma laha soo caqabad la'aan marka koo waxaad leedahay adiga nafsadaada koo waxaad leedahay ama maxaa ma sameyn karaa bahasha ma gadi karaa waxaan ma aqaanaysaa sameeya caqabada koowaad ku imaad waa nafsadaada oo inaad daab isku samayso dhahdid oo xoogo shaki iska geliso ama sameyn kari ama wax dhaqaale ka sameyn kari taas caqabada koowaad waa caqabadaas koowaad saa ugu hortagi karto waxaa markaa tareenada soo gashid waxa fahantid productiga wuxuu yahay systemka soo u shaqeeya aad baratid maxay ahayd nafsadaada train is wax bartid markaaseed baratid sidaa adiga shaqshiyadaada ma ahaan maxay ahayd ugu ganacsaleed company markaas xoogo shakiga nafsadaada ka qabta oo dhahay waxaa ma sameyn karaa ama sameyn kari waxaa ma sameyn kari shakaas uu kaa yaraan oo waxaa arkaysaa intaasoo ruux oo maasha Allah success ka gaartay ama horumar ka gaartay ganacsiganeeto dadkaaseeta oo dhaqaalaha ka sameeyeen oo waxtar ka sameeyeen 9 bilood ku dhashteen adiga 9 bilood ku dhalatay isku waa waxaa qabteen same company oo ku jirtiin isku product ku jirtiin isku company ku jirtiin adiga qofkaaseeta oo horumarka gaaray wax kale oo ku kala duwan waxaa waa dadaalkii extra dadaali keeneen dadaalkaaseeta ay keeneen hadaa la imaatay dhaqaalaha ay sameeyeen hadii ahaan inay guri gateen guryaal badan kateen gaariyaal badan kateen tiimkooda kabcay adigana waa gaari kartaa hadaa la imaatay dadaalkii iyo shaqada iyo waxa ay geliyeen dad waxyaalaha caqabadayaasha kaleeto oo imaan kara waxaa inay dadku dhahaan may markaa dhahda seemtaa shaqsi haddaa nafsadaada confidencigaada oo waxa aadan aqaanin inay productiga waxa faa'iidada ay tahay ganacsiga faa'iidadu yahay haddaadan aqaanin qofka dumay ku dhaho waa nii jabaysaa waxaa leedahay oo dadka dhamay inay wax ay gadanayaan wax ma lahan asleeda marka soo mayadaaseeto badan qof unbaa maxaa ku dhihi doona mayadaas badan haddaa aysan ku affect gareynaynin ama aysan ku saameynaynin companiga ganacsiga hore usii wadi kartaa oo maxaa yeele waxaa og tahay faa'iidada productiga ay tahay faa'iidada companiga uu maxay yahay dadka u hayo oo maxay tahay ganacsigiisa faa'iido laga sameyn karo dhaqaalaha laga sameyn karo iyo alaabta waxtarkeeda ogta soo hal qof oo may ku dhaha ama laba qof oo may ku dhahday uma joojinayso maxaa yeele ummadaas intaasoo ummad adduun ku nool u faa'iideyn kartaa ku sugooyaan opportunity-ga inaad gaarsiiso maxaa yeele opportunity-ganeeto anaga Oblis Global inta ku jirto bas hadirta access u leh intaasoo ummad access u baahan oo inaad gaarsiin nagala rabaa soo marka hal qof oo familkaada ama friendkaada ama dad kale oo jid ku aragto may ku dhahay uma joojiso marka waxa ku fiicnaa waxaa waa dadkaaseeto maadaama training-yaasha kasoo qayb galayay oo productiga waxtarkeeda aad bartay ganacsiga faa'iidadu leeyahay aad bartay soo hal qof may dhahay laba qof oo may dhahday ama 5 qof oo may dhahday uma joojin ganacsiga hore u sii wado oo mas'uulin oo raxmad dadka may ku dhahooyaan oo shaqo kalkaaliso tahay oo nurse ka shaqeysaayo uma baahnin online business oo maadaama shaqo professional haysta uma baahnin isma dhihino maskaxda taas waa ka baxsho waxaan okay inaad dadka u faa'iideysid rabtaa adigana seemta ka samaysaa rabtaa dhaqaale ka samaysaa seemta inaad ka heshid rabtaa maxay caafimaad soo hor u sii soco marka sidii yaa markaas aan isku program gareyso marka wax kasta waa maskaxdaada marka hore iska dhistid oo training-yaasha isku xirtid oo maxay ahayd companiga systemkiisa areas isku xirtid waxa oo markaaseeto niyajab kugu keenaya markaas ma laha ganacsiga hore usii soconi ummad badan oo ugu faa'iideynaysaa ummad badan way kuu duceynayaan dhaqaale meeshaas waa ka samaynaysaa insha allah wuxuun baan ogahay inay dadaal ku xidhan tahay wax walba uu qof walba bilaabayo sababtoo ah
waa halkii Soomaalidu oran jirtay barti yaqaan bari uma korodho waayo hal meel haddii aad ku dhagnaato waxba ku kordhimayaan waa inaad beddelka la jaan qaadaa waxyaabahan Oblas Global ku jeclaahayna waxaa ka mid ah waxa lagu siinayaa wax la yiraahdo personal growth horumarinta naftaada si shakhsiyan lagu tababarayaa maskaxiyan waliba free waa jaamacad lacag la'aan ah adduunkana kama dhicin company dadkiisii dhaqaalihiina ka kaabaya haddana maskaxdiisiina growth ku sameynaya waa wax loo dhigo ma jirto baan oran karaa okay sidee bay kugu suurto gashay inaad 200 oo wadan aad ka samaysato macmiil aadna uga faa'iideyso boqolaal qof oo Soomaaliyeed sidoo kalena su'aasha taaxigta aan ku raacinayo waxay tahay teamkaagu intee in lagu gaaro maasha waxa ugu fiican isoo degasho social media Facebook waa wada isticmaalnaa Snapchat wala isticmaalaa fi social media ku jiro waxay ga caawisaa markaas asxaabta la wadaago Facebook la wadaago oo markaas dukaamada stoorada tagaysa flyerada dhigo soo umad baa markaas soo raacayso waxyaalaha post gareynaysid testimonialka post isku dhigo dadkaas waxay suurta gashay markaas inaa markaas meeshaas team ka samaysto oo teamkii meeshaas uu ka yimaado ummadda la wadaag maadaama ummadda la wadaagtay haddii mayadaada badato mar unbaa haal dhahaso mar qofkii haa ku dhaho hal qof laba qof u faa'iideystay labadaas qof maasha Allah oo teamkaada kasii farcaman karaayo oo maasha Allah sii badanayo abku ayaysi noqon kartaaba soo marka la share gareysid waxtarka productigaada leedahay businesska leedahay social media marka la share gareysid maadaama hadda wax kasta social media iskugu bedelay meeshaas unbaa laga soo raacaya ama laga soo raacaya aniga dan ummad markaas meeshaas ka imaanaysa dadka soo alxamdulillah hor teamkay wuxuu leeyahay 200 wuxuu joogaa dirta 23 wadan uu joogaa oo 400 oo ruuxna way ka kooban yihiin oo partner business baan oo hal wadan ma joogaan wadan kasta jooga hadii ahaan lahayd Europe hadii ahaan lahayd North America meel kasta adduunka dhulka faafiyay Asia Malaysia Kenya soo meel kasta joogto dad jooga marka soo teamkana markaas uu iska imaanaya adiga la sameeysid wixii la wadaagto ummadda productigaada businesskaada ما شاء الله وتيم بلارن 36 waddan ayay kala joogaan waxayna ku timi kartidaadii dadaalkaaga waan oran karaa waxaad ku guuleysatay gaari free ah taas oo aad ku mutaysatay kartidaadii shaqada adag aad soo bandhigtay maxay kaaga dhigneyd arrinkaasi markii ay dareentay ama aad aragtay wixii aad u rafaadaysay ama aad u shaqaynaysay oo mir dhalay wallahi waa marka horeeto gaariga waxaa ka horay marka kunka door ugu horeysay soo dhacday anoo hasan kulli ku jiro oo dadaalo dadka la wadaagayay zoomka bixinaysa zoomka u qabanaysa dadka kaaga darinaa dhawaaqana shaqadii way ku soo dhacday markaas ay ka caawinaysaa inaa markaas waxyaalaha hadii deema lagu leeyahay iskaga bixisid si student loan ko kale iska bixisid familkaada wax ku dartid lacagtaas commission ku soo dhacday ku bilaawtay inaa siyab gareysid oo gaari ku soo qaad soo marka gaari soo qaad maadaama magaalo baraf ah ku noolahay oo baska markaas la qaadan jiray halkaas markaas corona jira baska xataa qaadashadiisa waa ka baqay soo markaas waxay isoo tagashay inaa markaas gaariga down payment ku shubto lacagteeda commissionka ma sha Allah markaas gaari la soo baxo oo qurux badan ma sha Allah oo hadda shaqada ku aado soo marka Ilaahay ma hadiisi ka imaatay ka bacdina dadaalkii iyo Oblas Global opportunity go ka imaatay mid labaadna waa fursad weyn ba online ku jirta sababtoo ah qofkii soo bandhiga shaqo adag sidoo kalena naftiisa ku kalsoonaada bartana systemka suuqa online u shaqeynaya runtii waxba kama hortaagna kaliya inta haduu sameeyo uu ka guuleysan karaa wuxuu doonayo inuu ku guuleysan karaa hamigiisa iyo rabitaankiisaba raxmo maadaama dad badan ay dhageysanayaan oo Soomaaliyeed oo danaynaya inay company-gan wax badan ka ogaadaan manoo sheegi kartaa qofka doonaya inuu ku soo biiro maanta Oblas Global maxaa looga baahan yahay maanta markuu ku soo rabo inuu ku soo biiro ganacsiga Oblas Global oo dhaqaale isla marka hore uu ka sameeyo waxa uu baahantaa lacagta dirta masha Allah discount lagu sameeyay package-kii waa dhihnay discount ma waa la reduce garay oo markaas email-keena oo intaasoo alaab ku jirto intaasoo free maxay ahayd customer service oo lagu caawinayo ku jirto
waxaa kusoo geli kartaa keliya haddeertaan 1300 Canadian aad markaa saas u bixisid lacagta saas u bixisid waxaa lagugu shubaya online accountigaada lagugu shubay online accountigaada marka lagugu shubo emailkaada lagugu shubo lacagtaasito dan markaasito ku adeegan kartaa so markaas lacag oo intaasoo thousands and thousands laguma dhahay 1300 Canadian waxay ku geynaysaa inaa access u lahaatid kusoo biirtid kasoo mid noqotid xubnaha Independent Bureau Obelisk Global kasoo mid noqotid dhaqaalaha hadda kasoo hadlay ka sameyn kartid oo maasha Allah oo dhaxalgalka ah oo dhow ilmahooda ay si dhaxali karaan maadaama company-ga net 18 sano hadda jiro oo company solid yahay ama company maasha Allah oo luis ku taagan adag oo meel u socon uu yahay hor uu soo socdo leh maahan oo dib u soo noqonaynin so sida haddeertaan booska u sii qabsatid oo dhaqaalahaas maadaama qof hadda maanta markaad soo gashiin beri dadka imaanaya soo galaya adiga ay tiimkaada noqon karaan oo hoostaada imaanaya 50% chance ah qabta inay hoostaada imaadaan ay tiimkaada noqdaan waxaad idin lahay internetna aad qabtid waxaa dhihi lahaa qofka dadka qofkaasi si dhaqso loogu soo gali karaa maxayd Obelisk Global ganacsigeena oo dhaqaalana ka sameyn karaa oo dhaqaalayaal fara badan ah 12 siyaabood dhaqaaleen lagu sameeyo uu ka sameyn karaa waa fursad weyn uu qof walba uu jeclaan lahaa inuu ka faa'iideysto laakiin uu la'aa dariiq uu u maro waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen Raxma oo idin sheegtay company-ga qaabka aad ugu soo biiri karto Raxma waxaan jeclaan lahaa wax yar inaad ugu bushaareyso qiimo dhimista hadda socota iyo xarunta weyn ee laga furay Hindiya qofka doonaya inuu ka faa'iideysto promotion-kan qaabkeebuu uga qayb qaadan karaa ما شاء الله وسؤال آدي هذا فعل معنا شو ونكون مع سنتين نسبحشيس ثم مركز درتان برموش هدرتان سعودة أو ود ماش أنا كصومالي هتان دان هني إنديا قف أخاني من جد قف كست إنديا وحوك أخانا إن قف أخانا ثم أنت ده سوق شاديجا لستين لايف ستايل بايسر كسوق شباكة كين كل سيد حد بقول أو ألاتيس أو أول كفر ديسي لما كنا دورر كفر ديسي وحلي جرتو كنديان هدرتان hoose u rideeyo company-ga maasha Allah marka dhijir waa khayr Allah si Obelisk Global laantis waa bar so marka laba kun wax la jirta package ku email ku fadhiyay hadarta kulli 300 oo ka dhiga maadaama si ogeen uu rabo dadka lacagta leh dadka lacagta yarba inuu isku mid ka dhigo oo maxay access u lahaadaan dukaanka company-ga inay ka ganacsan karaan ay soo gali karaan so kun 300 laga dhigay qof kasta meel kasta uu joogo uu baxsho oo taxi ku jirin so dad Canada jooga taxi ku so marka adiga package-kaas aad furatid adigaas maanta dhageysanaa furatid tiimkaada waxaa ku dhisan kartaa tiimka inta promotionka nit hadda socdo oo ilaa July 6 ku eg aad ka faa'iideysan kartaa aad tiim maasha Allah caadi ahna ka dhisan kartaa adigoo baaraya India promotionka u hayno dadka India degan oo resident ka ah degan oo meesha ku nool waxaa promotion u hayno waxaa waaye hal package oo lifestyle advisor markay gataan ama ay furtaan dukaankaasi emailka oo lifestyle advisor kun 300 baxshaan hal dukaan waxay helayaan oo kun 300 oo ku fadhiyo oo free ay helayaan oo alaab la socon maadaama kan koowaad waxaa buy one get one free Allah soo hindiin maadaama ay jecel yihiin wax free maasha Allah khayr Allah si jecel soo waxa u keenay promotion ah hal package markay gataan oo maxay email ah ay gataan lifestyle advisor waxay helayaan maxay ahayd in hal dukaan free ah hadee midka kaleeto oo 300 jooga oo package-keena kaleeto oo package-ka labaad oo 300 iyo 35 mise 350 meelas amal markay gataan kaas package kale oo free ah oo same price ku fadhiyo oo free ah hela so adigoo dadkaas u faa'iideynayo oo ummad badan oo maasha Allah dhaqaale u baahan oo opportunity raadinayo oo inay business sameeyo u baahan oo u offer gareynaysa ama siinaysid adigana meeshaas waxa ka dhismana team culus ka dhisan kartaa meeshaas wadankaas India ummad badan oo u faa'iideynaysa maasha Allah waxay ka helayaan meel ay dhaqaale ka sameeyaan ay heleen adigana meel dhaqaale ka soo galo ay noqon doontaa so marka waxaa idin lahaa mogaanina hana ka maqnaanina promotion-keena caalamiga oo dirta oo wadanka India u faa'iideyn doono maadaama hadirtaan company uu ka furay xarun oo India office ugu furo dadka India oo office ugu furo oo hadirtaan goojadeen Fountain of Life meesha ay tagayso wadanka India goojadaas oo waxyaalo badan ka caawinayso oo dadka ka caawinayso cudurro badan ka caawinayso waxyaalo fara badan
كعابن دونتو إن شاء الله قفكي مركز قاتا ماشي جينينا إندي ألابهن كلا دبي كي مان دونتا لكن دعبت هذا تكتو وحاول مركزيتو إن Fountain of Life لكن قفك إندي جو مركوت فرتو Fountain of Life وإماتو ما دام كمبينج إنه international qofkaasi qasmaan inuu India bas ku ekaado teamkiisa qofkaas India jooga wuxuu team asagana ka sameeysan karaa package-kiisa free markuu helo qof India markaas uu soo register gareeyo oo soo geliyo labadaas qof waxay team ka dhisan karaan wadamada kale oo international-ka adduunka ah ay ka sameeysan karaan ku socday baa waa fursad weyn runtii anagu markaan bilaabaynay anagii raxmo aanan helin runtii walaalaha jooga Hindiya waxaan rajeynaynaa fursadan ka faa'iideystaan qiimo dhimis ballaaran oo loo sameeyay waxayna ku eg tahay 6 July insha Allah tacaala inaad ka faa'iideysataan walaalihiina kale aad la jeceshihiin inay guusha haleelaan iyo horumarkana waa rajeynaynaa inaad u share gareysaan raxmo maadaama aan ogahay dadaalkaaga iyo kartidaada muxuu yahay mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba higsigaaga وبلس global maadaama ما شاء الله young millionaire keena Renee intaas ma sha Allah guriga gato guriga marba gaar cusub la soo baxo waxa taaganaa maadaama isku company ku jirno isku product aheeno gurigaas oo gadanayo 5 milyan 1 milyan 5 milyan hadda ugu dambeey 5 milyan wax la jirto guri oo gadanayo waxaana dhaqaalaha uu ka sameeyo ka save gareeyay waxa ka imaad Obelix global ka imaad inuu guri 5 milyan inuu guri 5 milyan ku fadhiyo inuu Canada ka gato waxay ka imaatay uu dhaqaalaha ka mid oo Obelix global ka sameeyo ku sameeyay soo rax maadaama isku company ku jirtiina dhahay isku alaab gadin isku systemka access u leeyihiin wax kasta isku mid ka tihiin wax kaliya uu kaaga duway waxa waa dadaalkii iyo inuu ummad badan la shir garino ummad badan banaankiis aad u afkiis ciileena soo marka adiga daliimada dadaalkii waxa seeto marka waxa hamiga ka leedahay oo insha Allah one day ina ka gato guri Obelix global ummad badan wax ka caawiyo markaas waa ka sameyn kartaa soo dadaalka insha Allah waxa waa ina dhaqaalaha uu ka sameeyay nimanka ma sha Allah milyaneeryaashina ka sameyn doona dadaalkiisa ina bilaawa marka waa ku jira ina sii xoojiyaade dadaalkaas soo markaas Obelix global wax kasta aan yeesata xal ina ka soo xajisid hooyada waalidiintaada u soo xajisid waalidiintaada dugsi u masaajid u dhistid oo wadi xal waa ina qortid wax kasta ina ummad badan agoon hada masaajid meel ah dugsi u furtid wax kasta oo ka caawin karo markaas dhaqaalaas markaas iga soo gal doon insha Allah ina masaajid ugu dar hooyo waalidiinteeda dhimata la un xariisto kamid ah ina meel agoon oo wax lagu baraa ina wax ku darsado u niyeysto oo anigan isku niyeysto waalidiinteeda u niyeysto waxyaalo fara badan maanta ina ka soo xajiir waa niyadeeda ku jirta plankiga ilaa ila garab galo wax lagu baraa ina wax ku darsado anigan isku niyeysto waxyaalo fara badan maanta ina ka soo xajiir waa niyadeeda ku jirta plankiga ilaa ila garab galo إن شاء الله إلهي كور رميو إن شاء الله إلهي كور رميو وحرجينيا همي قادر وباهن شقada adag inuu Ilaahay ku rumeeyo aad noqotid qofkii ugu horeeyay Soomaaliya ee riyada rumeeyo insha Allah taala maalinaan maanta ahayn dhamaan waa ismada insha Allah maanta adigana sidoo kale insha Allah ma jiraan meel laga soo xiriiri karo oo aad dadka u sheegi lahayd maadaama dad badan u gaarayo wareysigan Snapchat-ka laga soo xiriir karaa insha Allah iyo Facebook-gayga laakiin Snapchat-ka badanahay so Snapchat-ka iyo madiga la soo xiriir kartaa message igala markay ugu soo darsadaan message iga soo qori karaan insha Allah wixii xog ana gaarsiinaya ugu dambeyn maxay tahay talada ama fariinta ugu dambaysa aad u sheegayso dadka ku dhageysanaya iyo kuwa ku daawan doona insha Allah taala waxaan ilaa waqtiga iyo iska dhuminina marka fariinta warbixinta ay soo gaartay insha Allah waxaan ilaa hore ka furta position-kiina hore qabsada maadaama wax kasta ay timing tahay qofka uu ka soo horeeyo ka jaanis fiican yahay position-ka ay aad muhiim u tahay waxaan ilaa waqtigaas ka dhuminina oo position-kiina qabsada maadaama qofka dambe soo gali doon oo adiga inuu teamkaada noqdo oo ma sha Allah ka faa'iidid جالس أولاد واحد إن الله وقت بدل هسكت مننا توكلت على الله أنت الحديث صلاة استقرار تكتين أنا كوحان لك سقيب كل أوبلس global أنت دو إن الدافع الحي فايدة ديس
ما شاء الله إن شاء الله تعالى وحرجيني إنك كفائدة فرصة قالقة إنه بيسي ولا شيء رحمة أو إذا كفائدين يسي فائدة أونلاينك iyo sidoo kale fursada weyn ee ku jirta kambaniga caalamiga Oblas Global waxaan idin ku dari lahaa anigu hadii aad hami ama rabitaan aad leedihiin waxaan idin haynaa jidkii aad ku rumeyn lahaydeen riyadiina insha Allah taala mar labaad waan kaga mahadcelinayaa walaal raxma waqtigeeda qaaliga adoo waqtigaaga ciriir yahay inaad noo soo horto uguna faa'iideyso dadkaaga Soomaaliyeed fursada qaaliga aad haleesho waa ku maasada macaanto Janiska asiisayna ka mid noqdo أصحابتي عند فيك قاعدة السيد ماريا حسين أصحابتي أنا وإن سلامي ماريا إن شاء الله وإنه مركلت